waxaa dhici karta in waxyaalo badan dhacaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu noogu sheegay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi suurati inay xaasaskiisa ay u tashadeen. Hadaba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaasasku qabayn inta u tashadeen ay go'aan ku gaareen ay doonayaan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam inay u tashadaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka quraanka u soo dejiyay oo ugu sheegay markii loo sheegay